السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا كحرا لكي بوي أوفيشيال ما أنتو حربين إن لو وداقو قصير وعجيب سدان waxa ayna tusaysaa qofkii alla tala saarto inuusan alla marna garabkiisa u dayaceen soo ka tageen qisadan waxay ku dhacday gabar haddaba ayaan ka dhaxgalin qisada dhageysasho wacan gabar habeen waxa ay ku soo daahday guri ay degan tahay gabar kale oo ay saaxiib yihiin halkaas oo habeen walba ay casharada ku wada qisan jireen habeenaha ka mid markay casharada soo qisteen ayay gabadhii soo baxday kadib markii ay gurigeed soo aaday ayay wadada ay mareysay ayay cabsi ka dareentay maadaama ay wadadu cidla ahayd waxayna tala saaratay Allah wax yar kadib waxay aragtay nin geed agteed ku gambanayo way naxday waxay Allah ka barisay inuu badbaadiyo quraanka afkeeda ayay ku qabatay si uu ilaah ugu badbaadiyo cadowga agteeda taagan iyadoo quraanka afkeeda ku haysa ayay si tartiib ninkii u agmartay marka ay gurigeeda tagtay si nabad ku tagtay gabadhii subax markay soo kacday waxa ay maqashay wadadii ay xalay soo martay geedkii ninkii ku jiray agtiisa lagu dilay gabar xilliga uu dilka dhacay waa qadar 10 daqiiqo kadib markii ay meesha martay waxay dareentay in ninkii dilka geystay uu yahay kii ay soo agmartay xalay si ay booliiska ugu sheegto ninkii tilmaamihiisa ayay aaday saldhigga kadib taliyaha saldhigga joogay ayaa u sheegay inay haystaan dhowr nin oo habeenkaas loo soo qabtay loogana shakisan yahay dilkii gabadha inay geysteen sidaa darteed wuxuu gabadhii ka dalbaday in ay raggaas wejiyadooda eegto oo ay sheegto haddii uu ku jiro ninkii ay habeenkii aragtay gabadhii ayaa si geesinimo leh u soo hor istaagtay raggii eedaysanayaasha ahaa waxayna ka aqoonsatay ninkii wejigiisa ninkii ayaa isna dambigiisa qirtay gabadhii ayaa taliyaha ka codsatay in loo weydiiyo ninkii sababta uu iyada u soo weerari waayay markii la weydiiyay ninkii ayaa ku jawaabay kaligeed maysan ahayn waxaa dhinacyada ka socday 2 nin oo dhaadheer oo xoog badan subxaanallah malaha waa malaa'iktii rabbi ilaan quraanka ayay afka ku haysay marka ay ag mareysay ninka qisadan waxaan hadda ka baranay qofkii rabbi tala saarto inuu garabkiisa marnaba u dayacin marka dhamaanteen mar walbo haday uu dib ku qabsado ahaw midkii u carro rabbi bil aadan marnaba haw cararin baahidaadana u sheega halkaasi waxaan way qisadeeni waa walaalkiina laki oo in la rabo guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh